madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa maanta xarunta madaxtooyada kulan kula yeeshay saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala duwan waxayna kulanka looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa amniga ka jira deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Hirshabelle. kulankan markuu soo dhamaaday ayaa waxaa saxaafadda dibadda kula hadlay maanta oo 23 bisha December 2020 waxaa inoo qabsoomay shirka amniga ee dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaa maanta shir gudoomiyay shirka madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen. shirka maanta waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo gudoomiyaha ku-xigeenkiisa labaad ee baarlamaanka, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle, wasaaradda amniga. sidoo kale shirka waxaa goobjoog u ahaa maamulka gobolka Shabeellada Dhexe, taliyaha guutada saddexaad ee qaybta 27aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, AMISOM, taliska booliiska oo sidoo kale iyaguna maanta ay nala joogeen ciidamada haramcad ee booliiska Soomaaliyeed iyo taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Hirshabelle. shirka maanta oo shir gudoomiyay madaxweynaha dowladda Hirshabelle oo runtii ahaa shir amni aadna looga falanqeynayay xaaladaha amni ee guud ee deegaanada Hirshabelle. waxaa marka ugu horeysa aad looga hadlay xaaladda amni ee deegaanada Hirshabelle, waxaana madaxweynuhu warbixino uu ka dhageystay hay'adaha amniga ee maanta shirka ka soo qayb galay. sidoo kale waxaa kulanka inta uu socday maanta aad looga hadlay qorshaha kala guurka Somali Transition Plan Process. waxaana sidoo kale kulanka aad loogu falanqeeyay qorshaha amni ee xilliga doorashooyinka, maadaama aynu ognahay in ay nagu soo wajahayeen doorashooyinkii qaranka Hirshabellena dhawaan insha Allah ay ka bilaaban doonaan hadduu alla yiraahdo. waxaa kaloo kulanka inta uu socday aad loo faaqiday howlgallada xasilinta iyo qorshaha badbaado labo gobolka Shabeellada Dhexe. sidoo kale kulanka inta uu socday waxaa runtii hay'adaha ka soo qayb galay amniga ay warbixino amni ay siiyeen madaxweynaha oo runtii muhiim ahaa. insha Allahna dhawaan la dareemi doono kulankan iyo waxyaabihii looga hadlay. waxaana kulanka sidoo kale warbixino ay ka soo jeediyeen hay'adaha amniga. insha Allah muhiimadda ugu weyn ee kulanka maanta wuxuu ahaa in si wadajir ah ay u wada shaqeeyaan hay'adaha amniga oo runtii balan wada qaaday inay si wadajir ah ay u wada shaqeyn doonaan loona wajihi doono deegaanada cadawga uu gacanta uu ku hayo hadduu alla yiraahdo si loo xureeyo. sidoo kale waxaa runtii aad loo falanqeeyay in la sameeyo howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda magaalada ah Jowhar oo muhiim ay tahay. insha Allah tacaala hay'aduhuna mar walbay u diyaarsan yihiin, haddana weligood bay amniga magaalada ay soo jireen, waxayna balan qaadeen in howlahooda shaqo ay laba jibaari doonaan hadduu alla yiraahdo. sidoo kale magaalada dadka ku nool magaalada caasimadda Jowhar waxaan ognahay inay yihiin dad nabadeed, waxaan ognahay inay yihiin dad dowladnimadu ay ku weyn tahay. iyaguna waxaa laga maarmaan ah in mataqaanaa hay'adaha amniga ay la shaqeeyaan, wixii caqabad ku ah iyo wixii sharwado ah ee ku dhumaalaysanayana hay'adaha amniga ay la soo xiriiraan si looga dhex qabto hadduu alla yiraahdo. sidoo kale hay'adda nabad sugidda waxaa lagu booriyay shirka inta uu socday inay shaqada ummadda ay u hayso ay laba jibaarto, dadkana ay saaxiib ay ka dhigato si bulshada ay ula wadaagaan xogo insha Allah. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyaguna waxay runtii shirka maanta inta uu socday ka balan qaadeen inay sameyn doonaan iyaga oo runtii kaashanaya ciidamada AMISOM iyo ciidamada booliiska Hirshabelle howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar. sidoo kale inta shirka uu socday waxay balan qaadeen inay sameyn doonaan dhaqdhaqaaqyo iyo dib u xoreyn laga hirgelin doono deegaano badan oo deegaanada Hirshabelle ah hadduu alla yiraahdo. shirkeena sidoo kale inta uu socday waxaa runtii aad looga hadlay mar kastaba waa in laga wada shaqeeyaa nabadgelyada magaalada caasimadda ah, waa in laga wada shaqeeyaa nabadgelyada magaalooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle. annaguna ka dowlad goboleed ahaan waxaa runtii madaxweynuhu uu hay'adaha amniga ugu mahadceliyay howlaha adag ay ummadda ay u hayaan. wuxuu runtii aad iyo aad ugu mahadceliyay shaqo adag inay hayaan, loona og yahay insha Allahna shaqadooduna wuxuu ku baraarujiyay inay laba jibaaraan ka dowlad goboleed ahaanna runtii wixii taageero ah ee looga baahan yahay iyo mataqaanaa iyo dhiirigelin bana
mataqaanaa ay diyaar la tahay dowlad goboleedka Hirshabelle insha Allah marka shirkeena qodobadaas ayaa maanta looga hadlay idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin Liban Cabdulle Maxamed Liban Kiman Soomaali Cable TV عاصمة دولة قبلات كيرشبيل مقالة جوار